الله marka ugu horeysa waxaan si kalgacal ku jira iyo qadarin baa maartay u salaamaya dadka Soomaaliyeed guud ahaan idaacadiina mawjadaheeda kuwa dhaadheer iyo kuwa hirarka gaagaabanba si toos uga dhegeysta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan waxaan si maaragtay sharaf mudan u salaamayaa dadka ku nool galmudug oo aan runtii dadka Soomaaliyeed maanta ay uga hanwen yihiin meel kastoo ay joogaan inay yeeshaan nidaam maamul oo ayaga u horseeda horumar iyo baraare isla markaasna ay ku tawfiiqaan dadkii matali lahaa hogaamin lahaa taladooda u arrimin lahaa dadkaasoo wax badan runtii ay la daalaa dhacayeen inta taariikhda aan maanta aan wax soo garanay ama horteenna ama gadaasheenna intii iyadana kolleyba wax ka sii qori doonto gobollada Soomaaliyeed ee maanta wax badan loo dhegtaagayo inay noqdaan meeshii shalay dhibaatada iyo problemka inta badan Soomaaliya marka laga hadlayo iyada ay maaragtay ay ka soo bilaabatay hadduu isbedel yahay hadduu wax kastaba maaragtay Soomaaliya dhinacyo fara badan laga darso balse waxaa maanta qof waliba oo Soomaali wanaageeda jecel uu sugayaa galmudug oo noqota mar kale meeshii nabadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada astaanteeda qarannimo oo ayada u noqota gundhig ayadoona taasi ay suurtagelin karaan ilaahay ka sokow shacbiga qiimaha leh iyo ummadda qadarinta mudan ee ka soo jeeda maamulkaasi ama gobolladaasi la isku yiraahdo galmudug waan gartay xildhibaane hadda galmudug maamul dhismiis ayaa ka socda maamulla iska soo horjeeda laga cabsi qabaa inay ka dhismaan oo khilaaf baa ka jira bal arrintan sidaad u aragtaa runtii carabtu waxay tiraahdaa masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id wax dad dhibkooda maaragtay ay yihiin ayaa dad kalena dhibin iyo faa'iido ayaga ay u arkayaan sababta sidaa aan u leeyahay inta aan arkay dadka reer mudug iyo inta maaragtay ee maamulka aada maanta ka dhawaajisay ee laga sugayo inay dadka maaragtay reer galmudug ay samaystaan iyo galgaduudba sida ay u jecel yihiin inay dowladnimada Soomaaliyeed ay noqoto mid meeshii shalay iyada ay taagnayd ee ka timid asal ahaan wixii dhacay in meel maaragtay layska dhigo oo loo dhaqaaqo dhinaca qarannimada Soomaaliyeed ayaa waxay ku muujiyeen soo dhaweyntoodii cajiibka ahayd ee meel waliba adduunka laga daawaday markuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo tegey iyo intii uu isaga daba laalaabanayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali khayre intaasi shacabka ee sida diiran ay usoo dhaweynayeen kulamada ay la yeelanayeen dhinaca qaybihiisa kala duwan ururada bulshada kuwa culimaa udiinka ah ganacsatada haweenka dhalinyarada saraakiisha ciidanka intaba bulshada qaybaheeda aan runtii midna aanan u kala harin waxay noo muujinaysay
sida ay ugu hanweyn yihiin dowladnimada marka dowladnimadaasi ee mudug iyo galgaduud ee galmudug maanta ee ayaga maamul ahaan astaan maaragtay ee ay ka dhigteen maamul goboleed dad aada ugu faraxsanaa sida ayaga ay oga muuqatay dowladnimo jacayl waxay u ahayd yididiiro dalka oo dhan ee meella fara badan ee loo arkayay in maanta soomaaliya ay ka gudbayso marxaladii nalagu bartay ee burburkana keentay ee dagaaladii faraha badnaa ee lasoo maray gaar ahaan kuwii ugu xumaa ee sokeeyaha maantase haddii iyada ay hagaagtane dad badan waxay aaminsan yihiin in soomaaliya inta kalene ay wada hagaagi doonto marka maadaama astaantaasi ee iyada la siiyey dadka soomaali inay hagaagto aanan jeclayn shaqadoodii ayay qabsanayaan wax kastoo ayaga ay ku bixin karaan naf iyo maal waxay gelinayaan si aanan u dayin dalka meelaha laga wareemi karane oo soomaaliya inaysan waxba utoosin meelaha ugu muhiimsan bay ku jirtaa galmudug marka sidaa aawadeed maadaama dalkan uu leeyahay cadaawad fara badan oo isku biirsaday wasiyo fara badan waxa ay ku dhex dhuumanayaanna ay tahay dadka soomaaliyeed gudahooda ayagoo isu dhiibaya maaragtay warma oo ayaga midka kale ee dhabarka inuu kaga wareemo loogu talagalay ayagoo siyaabo kala duwan maaragtay farsamooyin mid toosa iyo mid dadbanba sidii loo kala daadin lahaa aanan u midoobin si aanan cududooda aanan usoo muuqan mar kale dalkan iyo dadkiisa ayagoo wax badan aan arkayna inay meelo fara badan maanta ee ayaga ay ku bixinayaan juhdi fara badan meel kasta oo soomaali haba yacni runtii maaragtay iyada dhexdeeda ha muransanaatee laakiin iyagoo haddana aan isdiidanayn ayaa dadka isu diidan ayaa waxa ay maanta ay isticmaalayaan inay kala dilaan inay iska hor keenaan dadkaas walaalaha ah si ayan maamul midaysan u samaysanin dowladda soomaaliyeedna aysan u noqonin dowlad mar kale hanata qarannimadeeda haana keliya maanta kama muuqato oo meel weliba markaad sii aadid jubbaland waxa ka socda waan u jeednaa waxa dalka hareerihiisa maaragtay iyo gudihiisaba fasaalaha laga rabo soomaaliya inay xaaladeeda ay iska daba wareeg maalin walba inay ku jirto dadka abaabulka u galay kuwa hantida maaragtay faraha badan ee soomaaliya ku bixinayo burburkeeda mar kale intaba waxa waaye waa waxaan dareensanahay marka soomaalina horay u tiri ninka keyrkii loo xirayo soo qoyso adiguna marka mudug maamulkeeda uu hirgeli waayo oo ishahaysad mar weliba iyada iyo fashilaad in lagu maartay soo gunaanada la rabo berina waxaa ku xigi doonto puntland kadibna haddana waxaa ku xigi doonto jubbaland haddaba iyada aanan fadhinin sal adagna lahayn oo weli qalalaasaheeda iyo maamulkeeda sida u yahay aan isla ognahay hirshabeelle iyo haddana koonfur galbeed ciyaarihii gobolada ee lagu tilmaamay berigii burburka uu soo dhowaa ee la yidhi markii lagu soo ciyaaray oo dagaalada iyadoo laga wado gobolada finalkii ciyaarta xamar in lagu ciyaaro ayay noqotay halkaasaana lagu kala tegay marka dadka laga shidayo meelaha maanta aan ognahay ee xamar ka baxsanna gudaheedana kama marna laakiin dadka soomaaliyeed inay ku baraarugaan dadka meeshaa ku nool dad soomaalida inay ugu dhiifoon yihiin ama inay aragti maaragtay ee aada runtii oo fog oo dad ficil ahaan marka loo xisaabtamo iyo adeeg ahaan waxaan ku kaftaynaa inay mudug ay tahay meel wax laga barto ee aanan meel wax la barin inay tahay si kastaba waxaa laga sugayaa inay isu dabcaan isu tanaasulaan
kursigaas qof unbaa ku fariisanaya waxaa laga rabo cadaaladda inay deeqdo ayaa muhiim ah. dadkoo dhan ma wada noqon karaan madaxweyneyaal, ma wada noqon karaan wasiiro, ma wada noqon karaan guddoomiyeyaal, ma wada noqon karaan kulli waxa ee iyaga dowladnimada ee sida kooban ee dadka qaarkii u micneeya, laakiin uu yahay dowladnimada micnaheeda shacabka oo xor ah, dal nabad iyo dad nabad oo ayaga markaa ku naalooda, horumarna gaara, waxa ayaga ay dalkooda ay ilaahay ugu galladay ka faa'iidaysta. laakiin maanta Soomaaliya waxaan arkaynaa in loo cunayo waxeedii aysan iyada cunaynin, in loo cadbaayo waxeedii iyada aysan cadbaynin. waxaasna waxay ku noqotay adigu caddi maysid, cunini maysid. haddaadan aniga aanan cunaynin adna iyo cuni maysid. intaad adiga aad cuni lahaydna cadow ha cuno ayaa caqli aan saliim ahayn ayaad moodaa inuu yahay Soomaaliya. waxa maanta in badeennii lagala baxo waxii wax dheef ahaa, khayraadkeennii layska qaato, had iyo jeerna annaga aan isku haysano waxaan micno lahayn inay noo noqoto wax caado ah. taana waa nasiib daro. waxaan jeclaan lahaa in caqliga uu shaqeeyo, dareenka uu shaqeeyo, soomaalinimadu ay shaqeyso, islaamnimadu ay shaqeyso, wadaniyadana ay shaqeyso.